شريك أو وين أصلا كنت أصلا alaabta sida ku daadsaneed iyo kii beegarka laga samayn jiray iyo kii beegarka إنه بدي horta waxyaabahan ku xasuusto foorno waxaa ka mid ah magaalada muqdisho maqaayadaha waaweyn oo dhan oo beegarada fish beegar ka sameeya waxaan wanaagsan daawadayaal waxaan markaasi aan ka soo dhaxadlayaa waa foorno ubax oo ku taal isgooska Baarubax foorno ubax oo markaasi oo ah hoyga macmacaanka waxaad markaasi ka heli kartaa macmacaan qaybihiisa kala duwan iyadoo lagu xasuusto foornadan in markaa ay shaqeyso in ka badan 30 sano taas oo ka dhigan inay tahay hoyga macmacaanka soo saartaanka marka la fiiriyo Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa halkan markaas lagu soo bandhigay macmacaan kala duwan waadna ogtiin ciidiina waa soo dhowdaa soon ayaa la galay sidaa daraadeeda maadaama bisha barakeysan Ramadaan haatan la soo gudagalay oo Ramadaankii laga sii baxayo kadibna ciidda imaanayso waxaad u baahan tahay macmacaan markaasi tayo leh oo markaas ku dheelatiran macmacaan sokorta aan ku badnayn isku dheelatiran oo macaan oo farta iyo afka markaasi kaaliskar oo sidoo doonanayaan ayaa lagu hayaa oo foorno ubax markaas aad ka heli kartid waayo foorno ubax waxa markaasi haatan ay ku diyaarisay maadaama bishii barakeysan Ramadaan la soo gudagalay ciidiina markaasi ay nagu soo aadan tahay waxay ku diyaarisay macmacaan isku dheelatiran oo kaaliskaraga haddii ay ahayd baglaafi basbuusi balacsham iyo sidoo kale waxyaabo kale markaasi badan oo ay ka mid yihiin buskudkii markaasi BT4ka keegi iyo sidoo kale macmacaano markaasi hadba nooc ah waxyaabaha kale markaasi aad ka heli karto waxaa ka mid ah xalwo markaasi laga sameeyay sisin iyadoo loosa iyadoo subaga iyadoo markaasi sixina ya salaam waxaan hubaa foorno ubaxaan tagay macmacaanna ma helin beentaada waay sidoo kale waxyaabaha kale foorno ubax ay kugu bishaaraynayso waxaa ka mid ah in ay markaasi u samaynayso discount fiican weliba dadka markaasi dhiganaya sagootinta soo dhaweynta xafladaha markaasi qalinjibinta xafladaha aroosyada baybayda iyo sidoo kale xafladaha markaasi kala duwan ee surprise kala isugu sameeyay sida dhalashada iyo wax kasto la xiriira waxay diyaar ku gula tahay xitaa adoo gurigaaga soo dhaafin in keegi box lagu soo geliyo magacaarto lagu soo qoro hadii sawirka lagu soo dhajiyo gurigaaga lagu keenaa macmacaanadan waa soo dalbanaysa kana raba kaasa raba macmacaanada waa soo dhignaa u jeedaan oo meesha kaaga muuqdo introga macmacaankaas qabsan screenshot ka qaaday dalaqa oo soo diray waxa la macmacaankaasi kaas u baahanahay iyo intaas waxyaabaha foorno ubaxan ku jeclaada idin sheegaa degdeg siimo wax waaye hadda dalbani hadda hele waxay diyaar kugu la tahay inay foorno waxay kugu soo dhawayso gooska Baarubax haddii jam iyo cariir iyo culays iyo baawraac badan ay soo galeen delivery lagu soo saara gurigaaga lagu keena adoo as dhibin location-kaaga tilmaamaysa address-kaaga u sheegay tartiib haas dhibin waxba foorno ubax rooti suwaxda ee sameeyaan foorno ubax cajiib xaafad walba iyadoo canjeero taala xitaa waxa waa iga daale kuleelkaas waxa la rabaa rootiga macaan ee dhadhanka macaan ka samaysan in markii la tijaabiyo foorno ubax hadda miya intaba ku taalo dad badan ayaa yaqaano Muqdisho dhan waxay gees dadkii macmacaankii rootiga markaasi geen jiray ilaa haatan sidii ay markaasi diyaar ugu leeyihiin shacabkooda inay u adeegaan waxyaabaha markaasi foorno ubax ku soo jiidanaya waxaa ka mid ah toortaan hadda meeshaan gadaashiida nin odaya toorta dalbanayay magacoo sheegta magaca loo soo qoray 2 daqiiqo ka maqnaano gudaha la geliyay qaybta foornada toortadii magaca lagu soo qoray jaawixiis waa diyaar shumacyadii waa ku hayaan decorationkii markaasi xafladaha happy birthday-da waa lagu hayaa bullerkii lagu hayaa waxa lagu hayaa koobabkii markaasi keega
keega waxa uu leeyahay koobab markaas loogu talagalay sida markaasi koobabkii lamaanayaasha ee lagu shubeeyay cabitaanka giftiyadii markaas siinayeen lamaanayaasha waxyaabo badan markaasi oo kala duwan ayay markaasi diyaar kugula tahay Foorno Ubax waayahay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Axmed oo markaasi ah maamulaha Foorno Ubax waxaana markaasi in badan aan ka wareysan doonaa dhibka markaas laga maro waad dareemi kartaa markii dib la galo waxay jecel yihiin shacabkooda in wax badan ay markaas siiyaan macaamiishooda inay qanciyaan Foorno Ubax dab ayaan la galayaa waan la shaqeynayaa si aad u heshaan wax dhadhan macaan oo isku dheelitiran oo Foorno Ubax cimaamadeeda aad dhahdaan anaga ma haysano sidaa daraadeeda gabaray ama wiilow ma leedahay xaflad markaas sagootin dhalasho bye bye aroos wax kastoo la xiriira waxaad markaasi lagugu sameynayaa gacmo furan iyo nigisamo kala gacal Axmed soo dhawow dabcan inta wax jeclaan in halkan soo gaartid si markaas wax badan aan ka wareysano oo la xiriir arintan Foorno Ubax iyo wax qabadkeeda way Axmed ay aad baan ku salaamayaa horta Foorno Ubax ma aan markii ugu horeysanay aan soo boqdo yaraanteeda waxa waa maraa jirta Balaxi degnaa jiray markaas wax waaye baar waxa u dhawaa mugta Balaxi baar wax daris waaye Foorno Ubax aniga isheeg maxaa la rooti waxaan ka soo qaada jiray rooti markaa ka soo qaado abaabala waxaan ku dhama taqaanaa rootigan soo qaadana tartiibteeda rootiga xitaa wax jeclaan jiray shaaxigan aan ku daarto ma fahanti alaabta shaaxiga lagu daarana arki jirtay ma shaaxiga ku godaa maqla jirtay hay inta inta fiirna waayahay Axmedow waxba Foorno Ubax inta ma ku taalo yaraanteeda Balaxi degnaa jira aniga waxaa jirta Balaxi mar aan ku soo babaaray baar waxba ii dhawdaa imaan jiray rootiga waxaan jeclaa jiray Foorno Ubax oo markaa ka soo geli jiray kuleelka rootiga baan oliya abo iyo midkii kala dhigi jiray isha abuukeyga alaabtii soo wareegay ilaad ma jirta alaabtii wareegay ma jirta alaabtii tii wareegay ha arti ma la alaabtii wareegaas abo another level waa kaas galbi maartay galab dheer galabtii la keen jiray abuukeena wixii duur ka dambeeyay waa dhamaan jiray waqti casarkii kadib galbi waxa soo bixi jiray Foorno alaabtii baan oliya hadda laakiin waa la horumar wax baan oliya abuukeena mar soo wada baxayaan abuukii ha noqdo ها صباحي دواء يا أرتي هنقضه هي سبيشال هنقضه صح أنت بو حلمة وديار أبو روتي بعد ما له جراس كلام جرا وديار مجرا ولا مجلا ألعبتي كلا غرغري عمل له جرزيني ها أنا فورن حتى مكسوبير فورن برادر مركب عميل هراء هاي برادر روتي كلا مجلسي وشريك أو وين السنة كنت السنة ألعب سنة كنت السنة يكي بيجر اللي اسمه يجري يكي بيجرك هرت وحيابان كوحص فورن وحكمي ده magaalada Muqdisho maqaayadaha waaweyn oo dhan oo beegrada fish burger ka sameeya marka brother new horta waa la hormaray hadda waxa ay dhiyoosaaba baana ooleyga abuukay waa soo baxayaan waagi hore rafaada laga mar jiray sax aheed rooti abuukay brother al-saydi kooy toos sala subax markii 5 subaxnimo tukanay soo bixi jiray magaalada lagu daan jiray waagi hore saa xasuustay casradii meelaas baana ooley waa dharar jiray brother no weli waxaan jeclaan jiray mataqaanaa rooti oo shaah iyo saliid iyo faras lagu cunaa iyo sokortii marka waa jeclaan jiray markii la yaraan ka hadlaa mugtahay hadda marka waxa waaye oran aad kugu sheegay maqaayadaha Muqdisho dhan beegarada iga geen jiray oo rootiga markaas beegarka laga sameeyo sidaa daraadeed Foorno Ubax wax horta ciimamadada lama haysan karo Axmedow maxaa cusub ciida soo dhow Ramadaankii hadda la galay ciidii waa soo socotaa qorshaha ciida maxay taaniyo نجيب صاحبكيga ما شاء الله هذا ما سنت ما وريسو فورنا wax farshaheeda hadii Ilaahay karaal noqdo waxa kamid ah صح ma macaanadii marka uu wareyso macaanadii oo dhameystiran صح waxa noqoto odayaasha oo sonkorta qabo abdi karka qabo صح wax iyaga loogu talgalay diyaar waa odayaashii oo dikari sonkorta qabo ana waxa loo diyaariyo waa loo diyaariyo هي كبتة ميجا شاي ديار كو محاكو سهري هي ددوينة رير مقدشو ددوينة رير مقدشو أنا حاليا هي وحاسود بإيدي صح بسكوتي بس سمسكة ها برا كان صدقيو سكرة كان صدقيو ألعاب تيدو ولقومي إيو فركة مجرد
معناها بركاga Burkaaga- 5 kiilo keensaday 2 kiilo ka guubta Waa amal gubatay, 3 kiilo ku soo baxday waa miisaaminay macnaha Warkeeda wax ma ma ilaa miisaaminay burkii sonkortii saliidii wax dhan iyada ku hays waa lagu macnaha lacagta ma keenay lacag ma dhiibinay bur iyo sokor iyo saliid wax wax dhan waa ku diyaarsan waan miisaaminay waa qaadanay waa qaadanay مسلبس معناه برا كاسدي برا كاسدي iyo كبو على لو كان kuna ay dhimanaato iyo ku fuuta lagu kaasana warkeeda ma jirto hada wax nadiif ah oo diyaarsan wax iga gubtay warkeeda ma jirto jeebkaada ma waa ka warkaas war weyn waay xaqiiq waa maqluusiin walaalayaalow hal yaa lagu sarbay meelo kale inaa qaadid meelaha qaar waxa jir mataqaana foornooyin qaar la iska geeyna 5 kiilo bur amal qaada iyo kun iyo alaabtii maxaa la jiray bakin iyo afarin lagu sameyn jiray inta qofku uu qaado uu geeyo waxa dhacay mataqaana brother waa lagu dadaraano صح ya صح ama waxa shaqo lagu maqana ciidna waa la gaaray صح hadhow waxa lagu leeyahay burkaaga waa kana qaado lacagtaadana qaado sidaa daraadeeda foorno waxay diyaar kula tahay inay kugu soo dhabaysa gacmo furniisa ma kala gacal war hooy waxaan ku leeyahay lambarka shaqada kaaga muuqdo waad u jeedaa foorno ubaxna waxay markaas diyaar u tahay had iyo goorba in markaas si wacanada ku soo dhabeeyaan ay si kal iyo laabna ay markaas idin dhahaan soo gaar halkan ramadaan kariim ay leena ramadaana galnay wax waa ciidi waan ugu soo socotaa ciida markay soo socotana wax waaye sidoo sheegay busikudyo fashion halkan yaal oo kala duwan macmacaanadii kale ee sida macmacaankii turkiga aadka loogu yaqaanay ee baglaati basbuus ya shiburo xilma iyo waxyaabo kale waad heli kartaan marka maamule gabagabadii aan mareena okay macaamiisha maxallada ugu dambeeyay macaamiisha waxa leeyahay waxaan ogaanaa foorno wax aad soo gaara foorno ubax iyo sidoo kale gacmo furan iyo niisama kala gacal oo nagula soo dhaweeyo waaya masanadii